maalmihii u dambeeyay waxaa aad loo hadal hayaa kiiska walaashan Ikraan Tahliil oo ka tirsanayd sirdoonka Soomaaliya isla markaana ay muddo kadib dawladda sheegtay in ay al-shabaab dileen haddana ay iska bari yeeleen ururkaasi. waxaa saraakiil kamid ah hay'adda ay Ikraan Tahliil ka tirsanayd bixiyeen macluumaad ku saabsan sida ay kiiskan gaar ahaan qaabka ay shabaab isaga fogeeyeen. dad badan ayaa aaminsan isla markaana warbaahinta ka sheegay in Ikraan aanay dilin shabaab balse lagu eedeeyay isla nabad sugidda uu hogaamiyo Fahad Yaasiin. waxaana xogaha ay sheegayaan in uu si laba kacleeyay khilaaf hogaanka hay'adda dhexdooda ah gaar ahaan Fahad Kulanajiis iyo Cabdullaahi Dheere. korneelkan Cabdullaahi Daahir oo ku magac dheer Cabdullaahi Dheere ahna taliyaha dabagalka ayaa toddobaadadii u dambeeyay ku daba jiray qaabka loo dilay Ikraan Tahliil waxaana aad ay isugu dhaceen Fahad iyo Cabdullaahi Kulane oo ka biyo diidanaa dabagalka uu waday Master Dheere. Cabdullaahi Dheere ayaa ka ag dhow ra'iisul wasaare Roble waxaana ay saraakiisha xogta bixiyay sheegeen inuu isagu ka dambeeyay jawaabta ay shabaab isaga fogeeyeen dilka. khilaafka hogaanka NISA oo lala eegay kiiska culus ee xilligan ka dhex aloolsan mas'uuliyiinta NISA waxa uu quus gelinayaa xaaladda dalka. xubnaha saraakiisha ah oo magacyadooda diiday in la baahiyo waxay sheegeen in Roble iyo Cabdullaahi Dheere ka go'an tahay in meel adag looga soo haro kiiskan wareerka badan ee kooxdii lagu eedeeyay iska fogeysay. waxay intaasi ku dareen in Korneel Cabdullaahi uu fashiliyay heshiis hogaanka kale ee NISA ku doonayeen in shabaab ku sheegtaan dilka Ikraan Tahliil. waxaana la tilmaamay in Cabdullaahi Dheere uu kooxda u sheegay in aanay sheegan karin xitaa haddii lacag la siiyo. tani waxay jidka u sii xaaraysaa sax ahaanshaha wixii waayahan lagu eedeynayay sirdoonka Soomaaliya ee ah in ay isku milmeen iyaga iyo al-shabaab. Fahad iyo Farmaajo oo uu weheliyo Kulanajiis ayaa la kulmaya sida la tilmaamay dagaal ay ku hayaan Korneel Cabdalla oo muddo badan ku aragti ahaa ra'iisul wasaare Roble. beesha caalamka mucaaradka Soomaaliya iyo in badan oo bulshada rayidka kamid ah ayaa xukuumadda Roble uga fadhiya gungaarka dilka Ikraan iyo tallaabooyinka ay qaadayaan.